soo dhawaada waxaan ahay Cabdifataax Durdur channelka nala socotaan waa Durdur podcast hadii aad hore nala joogtay nala joog hadii aad cusub tahayna nagu soo beer wixii comment ahna xagga hoose inoogu reeb in dhawaala ah waxa warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe ay isla dhexmarayeen in xiriirka u dhaxeeya Imaaraadka iyo Sacuudigu uu noqday mid sii xumaanaya balse arintaasi waxa beeniyay oo been waayiri madaxii hore ee sirdoonka Sacuudiga Amir Turki Al-Faisal madaxii hore ee sirdoonka Sacuudiga Amir Turki Al-Faisal oo kamid ah shakhsiyaadka loo tixgeliyo kuwa ugu saameynta sareeyaha amniga iyo waliba sirdoonka bariga dhexe ayaa maanta si cad u muujay in aan jirin wax khilaaf ah oo dhaawacaya xiriirka istiraatiijiga ah ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta hadalkiisa wuxuu si gaar ah ugu beegsaday warar iyo hadallo warbaahineed oo ku tilmaamay kuwa buunbuunin iyo kicin ah kuwaas oo isku dayaya buu yiri inay ka faa'iideystaan kala aragti duwanaanshaha marar qaar ee dhexmara labada dal Amir Turki wuxuu xusay in xiriirka Sacuudiga iyo Imaaraadku uu yahay mid qoto dheer ku dhisan dano amni istiraatiijiyad iyo waliba iskaashi muddo dheer soo jiray isla markaana aanu si sahal ah u wiiqmi karin sida u dhigay hadalka weeyaane kala duwanaanshaha aragtiyada iyo waliba mararka qaar kood soo baxa kala aragti duwanaanshaha waa arin tabiici ah ee ka dhex jiri karta dalal kasta oo xiriir dhow leh balse ma gaaro heer gabi ahaanba wax u dhimaya isbahaysiga guud iyo waliba xiriirka sida gaarka ah ee u dhaxeeya hadalkan Amir Turki ka jeediyay shirkii Investment C oo ka dhacay Shura al-Islaan ayaa waxa markaasi oo ahayd goob si taxadir leh loo doortay taasoo xambaarsaneed fariin ka tarjumaysa isku xirnaanta amniga dhaqaalaha iyo waliba danaha badda ee Sacuudiga iyo xulfadiisa ayaa hadalkiisa waxa uu muuqday mid si gaar ah loogu diray labada dhinac warbaahinta iyo qubadaha kale ee isku haya ama isku dayay in ay fargelin ku sameeyaan xiriirka Riyadh iyo Abu Dhabi ayaana taas u noqotay mid fariin cad loogu diray waxaana warbaahinta inta badan isbuucyadii la soo dhaafay ay hadalhayeen inuu sii xumaanayo xiriirka ka dhaxeeya Riyadh iyo Abu Dhabi balse taas ayaa been waay la yiri marka si qoto dheer loo aqriyo hadalka Amir Turki wuxuu muujinayaa aragti istiraatiiji ah oo Sacuudigu muddo dheer ku shaqeynayay in khilaafaadka yaryar ama aragtiyada ku meel gaarka ah aan loo ogolaan inay saameeyaan danaha waaweyn ee amniga gobolka arintan si cad ayay ugu muuqataa sida labada dal